بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي علىها أود لو كرر النقدار دي 10 كينان ما أنت وحا إنه كبرن دونا سيدا الله سميو كوفر بوك ديزاين ولو مد كان حد رهرتنا إذا كجا موقع أيانو أديجا يعني بس لسه دونا إن كان حد أرضي وحا وكشرا وحوي وموك أب مركز هوري قاب كان أيانو ديزاين جري سد حارت بورد بان استعمالي طبعا جبردان واتقانا الله نحرستو وجستيس فور سابرين كوفر بوغا عيوان كيسو وحوي عدالة وباهنتها ولا شيء سابرين إلى هو نحرستو إلى سبحانه وتعالى عدالة دا برانك هاكينو سو مرك سي أنسكولا سمينو 10 كواب بسينيا سي ديبلي أو فافاسنا وان أشرحيا إن شاء الله مرك هو روحان تجينا فايل كدي بحان لنا هاي نيو أما كنترول إن أنت مركا ماديد وحاوي قيبتا وحان تجينا برينتيغا كدي بحكسي دورنا A5 بوغا رمنو coveradiisa inaan design gareyno waa cabirka A5 ka weeye A5 ayaa dooranayna kadib qaybtan artboards ay ku qoran tahay ayaa tig saaraysaa intaas markaa sameeyno kadib waxa leenahay create hadda halkan waxa ku qoran artboard 1 hal artboard baa inoo samaysan laba artboard kale ayaan ku soo darsanaynaa si aan ugu soo darsano halkan ayaan imaanaya move tool weeye right click waad tagaya because meeshan fiiqa yar waxay ku cadeynaysaa in toolkan uu tool kale ku hoos jiro meel kasta oo fiiqaas kaga muuqdo waxay cadeynaysaa in toolkaas tool kale uu ku hoos jiro soo marka halka marka right click baan ku leeyahay artboard tool ayaan soo dooranaya artboard tool ayaa ii dooran dabcan meeshan artboard ay ku qoran tahay magaca ayaan click ku siinaya hadda marka artboard keygan wuxuu diyaar u yahay inaan artboard kale ku soo daro core plus baa iga muuqato dhinacan plus hoos plus dhinacan kale plus soo marka dhinacan ayaan rabaa inaan uga soo darsado meeshan plus ay ku qoran tahay ayaan click siinaya because meesha wax ku qoran qoraalka yarka akhri add new artboard or alt click to also duplicate contents soo marka meeshan ayaan plus ka taabanaya plus ka markaan taabto dabcan waa igu soo darsamaya hadda artboard kale ayaa igu soo darsamay soo marka si mid kale aan ugu soo darsado mar kale ayaan plus taabanaya hadda waxaan haystaa 3 artboard ayaan halkaas ku haystaa buuga dabcan sida buuga dabcan artboard kan waa coverka kore kana waa coverka kale halkii dhexe weeyaa kan meesha yarta oo fiiq yarka ah oo labada buug labada cover ay isaga imaanayeen soo halkaas aan ku dhufanaya marka halkaas dib u soo celinaya adoo cabirka markaas coverka aad sameynaysid ay ku xiran tahay iyo buuga mugiisa iyo xajmigiisa iyo weyninkiisa intuu leeyahay marka hadda inahaas aan u deesanaya aniga halkaas aan ku dhaafaya waa hagaag soo artboard kan si aan halka u keeniyo oo aan kan dib meeshan ugu soo dhabeeyo meeshaas artboard 3 ku qoran tahay aan click ku siinaya kadib waa soo drag gareynaya okay halkaas aan keesanaya marka inta markaan sameeyo kadib move toolkayga dib ugu noqonaya wax kasta oo marka halkan hadda inooga muuqdo waa soo qaadanaya soo ahaan gabarka sawirka gabadha iyo barcode kan ayaan u baahanahay waxa kale waa qoraal iyo design aan isla sameyn doono aan isla arki doono soo marka gabadha sawirkeeda waxaan leeyahay file place embedded meesha uu yaalo ayaan tagaya ka soo qaadanaya okay sawirka gabadha halkan ayuu yaalaa kadib waxaan ku soo leeyahay place okay artboard kan ayaan keensanaya marka artboard kan ayaan dooranaya qaybtan hoose ayaan click ku siinaya artboard ka hadda ii dooran dhankan layers ka imaanaya kadib halkaan aan imaanaya halkaan artboard markaas aan u tago meeshaan aan imaanaya meeshaan waxa ku qoran waa create new fill or adjustment layer ayaa leeyahay halkaas aan ku dhufanaya kadib solid color ayaan ku soo darsanaya midabkana waxaan ka dhigayaa madow kadib okay baan leeyahay hadda sawirkii gabadha waa inaga qarsamay si marka gabadha sawirkeeda aan dusha sare u soo marino qaybtan layers ka imow sawirka gabadha waa kana kor u soo qaad meeshaas markay diilinta bluega ku soo baxdo ku siidaa hadda sawirka gabadha ayaa kor inoo soo maray okay kan marka gabadha kor u qaadaya waxyar madaxeeda kor u qaadaya meesha geeniya waana center si ay center u noqoto aan hubiyo align kan tagaya center aan leeyahay okay gabadha marka sawirkeeda waa loo gareynaya log baan ku xiraya halkan waxaan ku soo qorayaa justice for Sabrine waxaan tagaya text tool kadibna halkan waxaan ku qorayaa justice anoo isticmaalaya farta bobnis waa farta wili waxaan ka isticmaalayaa extra bold geeda isticmaalaya okay farta waa inay sawirka ka sar martaa okay wada capital waa inay noo noqotaa waxaan leenahay
justice kadib farta halkan ayaa laga weynayaa soo yar weyneynaa extra bold. Okay, kadib waxaan leeyahay center xoogaa yar hoos aan soo celinayaa marka. Okay, intaa markaad sameeyo isla iyadii waa koobiyeenayaa. waxaan leeyahay haltan qabanaya kadib waa soo jiidiyaa. halkan waxaan ku qorayaa for Sabrine kadibna waxaan dooranayaa halkan stylekeeda waxaan ka dhigayaa regular kadibna waa yareynayaa. waayahay halkaasaan geynayaa. Okay, justice for Sabrine. halkan hoose waxaan ku qorayaa prepared by buugga qofkii diyaariya camal. waxaan leenahay prepared by Abdinazir Osman. Okay, farta waxaan ka dhigayaa thin baan ka dhigayaa kadibna aad baan u yareynayaa. meeshaasaan geynayaa. Okay, inta iska keen marka meeshaas u daa kadib center dheh Sabrine center dheh justice na center dheh. Okay, center ay wadayin. So marka haddana waxaan imaanaya artboardkan kale. Okay, isaan dooranayaa qaybtaas midabka adaya kusoo tusaya tagaya. Okay, isaga markaas u doorto solid color black aan ka dhigayaa. isagana logo ku xiranaya. waayahay halkaan marka waxaan ku qoraynaa justice for Sabrine. si aan ugu qorno waxaan leenahay okay, text aan tagayaa kadib halkan ayaan kali ku siinaa. dabcan textigan hadda waa horizontal ama waa chief. si aan joog uga dhigo move tool aan tagayaa kadib saanaan usoo leexinayaa halkan. Okay, shift la qabanaya si uu dhexda ugu tooso. halkan marka double click baa siinaya control V waxaan ku leeyahay justice for Sabrine waan soo copy-paste. Okay, waa center. qaybtii saddexaad aan isla soo gaarnay. qaybtan iyadana midabkeeda waxaan ka dhigaynaa isla madow ayaan ka dhigaynaa kadibna ilo gray. Okay, halkan waxaan ku qoraynaa styles tan isoo koobiyey. waxaan ka dhigayaa she needs yare extra bold. she needs. Okay, meeshaas u daa marka center ka dhig. your helpfulness voice. intaas waa yareynaa. waxaan ka dhigaynaa regular kadibna yarey. she needs your helpfulness voice. meeshan waxaan leenahay rectangle shay baa halkan kusoo daragareynaa ilaa meelahaas gey. midabka waxaan ka dhigaynaa meelahan keen noocan ka dhigo. Okay, fill colorka haddana ka dhigaysaa. Okay, haddii meelahan kaaga soo muuqan dabcan halkaan ka bedelaysaa adiga. halkaan ka bedelanaysaa. Okay, fill colorka aad u badan yahay asoo yareynaa 4 meelahaas igey. Okay, midka door qaybta layerska imow opacity-ga u yaree. waxoogaa yar soo curve galay. Okay, halkaa usoo badi. Okay, isla isagii waxaan ku sameynaynaa koobiyeenaya control J waa leenahay. midka koobiga qaybta layerska ima fiiri. midka koobiga sareeyo waa inaan hoos soo marinaa. midka rectangle caadiga ah caadi ha ku ahaado. soo marka midka koobiga ah xoogaa plus control plus isoo soo dhaweyso alt qabo. midka koobiga waa xir weynay ilaa meelahaas kee. Okay,
kadibna enter dheh. waa hagaag midkaan sare dooro tagasa soo dooro aan yiraahdo kadib halkaan saa ugu drag garee. okay kadib waxaad tagtaa qaybtan type kan tag kadib waxaad dhahdaa past lorem ipsum. okay control a dheh way waaweyntahay farta waxaa ka dhigtaa extra light. okay ama thin ka dhig cabirkeedu waa weyn yahay aad u badan yahay meelahaas keen 13 halkan fur character paragraph tag. okay midkaan justify to the center ka dhig justify last center. halkan marka hoose waxaan keenaynaa barcode kii ayaan halkan keenaynaa. si aan u keenno waxaan leenahay file kadib place embedded meeshuu ku yaalo aad tagaysaa kadib aad soo qaadaysaa folderka ku yaalo. okay barcode kan isoo qaad halkan keen marka. okay barcode kan dooro center ka dhig. waa hagaag ardayhay buuggeeni hadeer waa inoo dhan yahay oo inoo diyaarsan yahay. soo marka buuggan ama cover buugga qaabkan ayaa loo diyaariyaa. markasta waxa ay ku xiran tahay adiga iyo macaamilka aad buugga markaasi u sameynaysid. hadba buugga markaasi isaga uu ka dalbado ayay ku xiran tahay nooca uu yahay. hadduu yahay A4 hadduu yahay A5 hadduu yahay B4 adiga markaas hadduu yahay A6 book. soo markasta buugga iyo macaamilka adiga markaasi aad shaqada u qabanaysa ayay ku xiran tahay. halkan anaga hadda qoraal oo aan iska soo koobiyeenay oo Photoshop-ka default ku ah ayaan halkan ku paste gareynay. soo markaas laakiin marka adiga sida saxda aad micnaha hawsha u qabanaysid markaasi xog saxan ayaad ku qoraysaa. dabcan xogta macaamilka uu ku keensado ayaa halkaas u saaraysaa. just hadda waxaan ku tusayay dabcan waa example oo kaliya qaabka loo sameeyo. adiga dadaalkaaga inta ka laba jibaar caajisinaha markasta waxa weeye qofba iyo dadaalkiisa weeye. insha Allah ardayhay intaynu cashirkiisa dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.